الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كيني وحدات أنا قلنا ومسك عبد النور سلام maanta haddii uu rabbi raali ka noqdo waxaan ka hadlaynaa qaar ka mid ah xikmadaha ku xusan buugga 365 xikmadood ee lagu gaaro guusha. buuggan asalkiisu waxa uu ahaa Carabiga waxaana loo soo rogay afkeen hooyo. waxaa lagu saleeyay tirada iyo maalmaha sanadka uu ka kooban yahay. inta badan dadku waxay aad uga fakaraan qofka haddii uu xanuunsado waa la daaweeyaa, haddii uu qofka macluul ku dhacdo kale oo nafaqo darro ay ku dhacdo kale nafaqa la siiyaa, laakiin inta uu jirka xanuunsana in la mid ah ayay waxa xanuunsado caqligeena mar walba wuxuu u baahan yahay in la kobciyo. waa tii uu lahaa abwaan gaariye gugii kugu siyaadaba gabow mooye hadduu garaad ku kobceen ileen geed wax madha. xikmadda koowaad ee buugga aan ka qaadanayno waxay tahay si aad u noqoto haliyey waa inaad naftaada aamintaa marka ay dadka kala kaa shakiyaan. marka aad rabto inaad wax cusub bilowdo oo lagu dhaqmo waxaad ma qaban kartid, waa in markaas aad naftaada ku kalsoonaataa si awoodahaada kuugu qarsoon ee banaanka ugu soo baxo. qodobka labaad ee aan ka qaadanayno waxa uu yahay maskax ahaan waa inaad guulaysataa inta aadan guulaysan noloshaada. guryaha marka la rabo in la dhiso waxaa la sameeyaa inta aan dhismaha la bilaabin kahor waxaa la sameeyaa in intii injineer loo soo waco gurigii la nashqadeeyo oo qal iyo warqad intuu injineerkii u qaato sidii uu gurigaas noqon lahaa inuu u qorsheeyo. astul la mid ah waxaan u baahannahay inta aan nolosheena guulaysan kahor inaan guulaysano maskax ahaan. waxaa la dhahaa fikirka waxa uu dhashaa 2 jeer. mar waxa uu ku dhashaa maskaxda aadanaha, marna waa markii la rumeeyo oo fikirkii riyada ahaa run laga dhigo. qodobka saddexaad ee ka qaadanayna waxa uu yahay wax kasta oo aad rabtid ama aad ku riyaanayso hadda bilow. geesinimadu waxa ay caloosha ku sidataa awood iyo cabqarnimo. waxa qofka uu iyo halka uu taagan yahay derbiga weyn ee ku gaadaaman waa cabsida. marka qofku uu cabsida uu ka tallaabo waxa uu la soo baxaa awood asaga ku qarsooneed, awood uu wax walba ku qabsan karo. xikmadda afaraad waxa ay tahay kuwa saaran oogada sare ee buurta cirka kama ay soo daadegin. xikmaddan waxay tahay qof walba oo maanta aan ku riyoonayno inaan asagoo kala noqono ama qof walba oo maanta noo ah qof aan ku dayanayno kuma uusan dhalanin noloshaas uu ku jiro. dadaal uu sameeyey ayuu ku gaaray heerkaas loogama jarsana. xikmadda shanaad ee aan ka qaadanayno buuggan waxa ay tahay qofku waa wax soo saarka waxa uu aaminsan yahay. dadka aadanaha waxaa kala saaro waxa ay aaminsan yihiin. qodobka toddobaad waxa uu yahay dadaalku kama miro dhasho ilaa qofka dadaalka wada uu diido in uu quusto. nalka habeenkii markii la gaaro magaalada markaad aragto waxaad arkaysaa in maalin camal ay tahay oo si fiican magaalada dhan ay wada camiran tahay oo nolol ay ka wada iftiimayaan. ninkii nalkaas soo ictiraaqay 99 jeer ayuu guuldareystay waxa uuna diiday in uu quusto. guushu waa sida jaranjaro loox ka samaysan oo kale. qofna ma awoodo asaga oo jeebkiisa gacmaha ay ugu jiraan in uu koro jaranjartaas. dadaalka qofka uu kari karo inuu ku guulaysto haddii uu qaar ka mid ah la haro ma suurtagelayso in qofkaas oo ibir gasho waxa uu hubay. qodobka sagaalaad waa xikmaddan waxay ka hadlaysaa habdhaqanka wanaagsan waxayna tahay wax ku ammaan cod dheer waxna ku canaano cod jilicsan. qofku waxaa la lahaa markii uu qalad galo hadallada lagu dhahbay saameysaas oogad waxaa la qofka si jilicsan wax ugu sheeg. xikmadda tobanaad ee ka qaadanayna buuggan waxay tahay qofkii ku guul dareystaa qorshe dejintiisa waxa uu qorsheeyay fashilkiisa. haddii aadan qorsheenin noloshaada ayadaa ku qorsheyn doonto, haddii ayada ay ku qorsheysana kuma wadi doonto meesha adiga aad u socoto. 13aad ee ka soo qaadanayn ahna qodobkeena ugu dambeeya ee xikmadaha waxa ay tahay aqoon kali ah naguma filna ee waa inay raacdaa dhaqangelin. sidoo kale doonista kali ahna naguma filno oo waxay raacdaa dhaqangelis. halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa xikmadihii aan maanta kasoo qaadanaynay buugga 365 xikmadood. waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.